Salaamullah saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena maalinlaha ah. Haddii aad nagu cusub tahay, fadlan inagu soo biir. Mahadsanid. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa qorsheynaysa in maamul cusub laga hirgeliyo gobolka Awdal, kaasoo si toos ah u hoos imaanaya Dowladda Federaalka Soomaaliya. Qorshahan ayaa loo arkaa mid saameyn siyaasadeed iyo mid amni ku yeelan kara Somaliland oo hore looga sameeyay maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya. Wasiirka Gaashaandhigga Axmed Macalin Fiqi oo ka hadlay magaalada Laascaanood ayaa xaqiijiyay in qorshuhu weli socdo, isla markaana ay ku lug leeyihiin dhinacyo kala duwan. Inkastoo qorshahan uu wajahayo diidmo iyo walaac ay muujinayaan qaar ka mid ah maamul goboleedyada,